Kadib hadal ka soo yeeray madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo goordhaweyd sheegay inuu cafis guud u fidiyay ciidamada ka tirsanaa maamulkiisa ee ku biiray mucaaradka, isla markaana ay soo dhaweynayaan cid kasta oo ka qaybgalaysa doorashada, ayaa si weyn loo soo dhaweeyay halkaasi, wuxuuna ka helay taageero gooni ah. Ujeedka ayaa lagu sheegay in Laftagareen uu fursad aan xadidneyn u siiyay ciidamadaas si looga baaqsado dagaal ay galaan maamulkiisa, waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay soo dhaweynayaan ciddii ka qaybgalaysa doorashada ka dhacaysa Baydhabo, sida uu sheegay afhayeenkiisa. Dowladda Koonfur Galbeed waxay ku baaqaysaa muwaadiniinta Koonfur Galbeed meel walba oo ay joogaan kuwa daneynaya in ay ka qayb qaataan doorashada haddii ay tahay doorashada golayaasha wakiilada iyo tan madaxweynaha, inay kasoo qaybgali karaan saaxaduna ay u furan tahay. Dowladda ayaa ballan qaadaysa ammaankooda iyo ilaalintooda, waxaase mamnuuc ah in musharaxiintu ay hub soo qaataan, ayuu yiri Ogaas Xasan Cabdi. Arrintan ayaa waxaa durba taageeray gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed oo sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka cafinta iyo baaqa doorashada ee ka soo baxay xaggiisa madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen. Waxaan soo dhaweynayaa go'aanka wanaagsan ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee cafis fidinta ku baaqista doorasho u furan dhammaan daneeyayaasha. Waa gudashada waajibaadka dastuuriga. Koonfur Galbeed waxay dagaal ka dooratay nabad, colaadin waxay ka dooratay cafis, sharci darrona waxay ka dooratay doorasho u furan musharaxiinta oo dhan. Waxaana rajeynayaa in go'aankaas wanaagsan lasoo wada dhaweeyo lagana dambeeyo, ayuu yiri Thabit Cabdi Maxamed. Waxaa kale oo ku sii daray waa biseyl dowladnimada iyo tallaabo ay tahay in madaxweyne Xasan Sheikh uu cashar ka qaato xayiraadda diyaaradaha, waa inuu ka qaado musharaxiinta. Koonfur Galbeed ayaa haatan wajahaysa xaalad adag oo ka dhalatay khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka, iyadoo weli ciidamo lagu sii wado deegaanada maamulkaasi, taas oo sii murjinaysa xaaladda taagan, isla markaana keeni karta inuu qarxo dagaal u dhexeeya labada dhinac. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda ayaa hadda u muuqata mid faraha ka sii baxaysa, lamana oga sida ay wax noqon doonaan iyo halka ay ku dambeyn doonto arrinta. Saabiriin Warsame, Rajo TV, Guriceel.